Viewers, peace of Allah be upon you. Welcome to Haga Academy, home of education, technology, and human development. Tonight we will start mega book of modern English grammar, and I give you some advices. Those can you learn English language fluently. For let's say, just welcome the explanation of this lesson. It's lesson 1. waan idin salaami daawadayaal meel kastoo dunida caalamka ka joogtaan iyo xilli kastoo idintahaba kusoo dhawaada Haga Academy hoyga tacliinta tiknoolajiyada iyo horumarinta aadamiga. Caawada waxaan ku siin doonaa insha Allah binal kareem oona bilaabo doona buugeeni mega book of modern English grammar. Caawada waxaan qaadanaynaa binal kareem contextka iyo waxaan qaadan doonaa insha Allah binal kareem iyo hadii la kuulin advices ku saabsan how you can able to learn English language maadaama aad doonayso inaad luqadda Ingiriiska barato bal sidee waxyaabaha fudud sidee ugu fudud ee aad wadooyinka ugu fiican ee aad mari kartaa. Okay, and mega book of English grammar ayaa noo bilowday kulan wacan casharkiisii kood weeyaan. waxaan laga rabaa marka inaad si fiican ula socoto casharka. Advices talooyin ayaan insha Allah casharkan ku bixi doonaa iyo contextka binal kareem. Su'aasha koowaad aan rabaa inaan kaaga jawaabo waxay tahay the first question that I wanted to answer for you. First, how can I learn English language? Madama aad doonaysid inaad luqadan barato, you have to ask yourself question, that is, how can I learn English language? Waa naftaada weydiido horta sideen anigu ku baran karaa luqadda English. Marka I will give you let's say daqiiqadaha soo aan ku sii doonaa binal kareem 10 advices oo faa'iido fiican ama 9 advices oo faa'iido fiican deelo ku siinaya aad wax fiican ka dhaxli doonto binal kareem. Kow maxay tahay reading everything you can get your hands on. You have to read anything that you can get. Shay kasta aad karto inaad akhrisaa, laakiin arag shaygaas muxuu yahay shaygaas waa inuu ku qoran luqadda Ingiriiska. Writing with English language. erayga hadduu luqadda Ingiriiska ku qoran yahay soo qaba akhri waxa ku qoran shayga eraygan muxuu yahay horta marka hore maxay akhri. laba maxaa laga doonayaa second effectively take note of new vocabulary. waxaad qaadaas markasta waxaad qaadataa take note qaado wax ku qorto wax ku diiwaan gashato maxaad qoraysaa of new vocabularies erayada cusub. take note qaado weeyaan actively يعني waxaad inaad active ahaato adigu markaas oo active tahay ama qof markaas joogteynaya inuu note qaato inaad noqoto horta note hore u qaado kadibna wax ka soo aragto shay ka soo aragto aqri kadib erayada ka heshto faraha ku qor new vocabularies new nooc cusub. Okay, talk with real life humans. You have to speak and to chat people those can speak English language fluently to get a result. ساد فائدوها شرط نتيجه لا شك سدد luqadda ku hadli kara horta qoralka sida club house oo kale waxaad ka helaysaa meelada ama English laga dhageysanayo ama English looga hadlayo kala ka helaysaa ama qol abuura kartaa adigu markaas club house kale ku biirto kale laakiin it is maybe inuu marka ku lost time kugu sameeyo waqti uu ka cunaa laakiin marka horta waxaad samaysataa la hadal dadka English ku hadal qofka aragtid ama waxyaabo aad aragtid English markaas aad jeceshahay inaad English ku sheegto Ingiriisiyan isku dabar horta. labo subscribe to broadcast or YouTube journalists in English. Any channel who about something about English language or speaks topics ka hadlaya markaas ka hadlaya ku baxaya luqad English such as films kuwa aday la kuuriyay English ku baxaya inaad daawad subscribe saara dan daawo dhageyso. leeyahay caption buu leeyahay YouTube ku caption kaas oo luqadda Ingiriiska saaranaysa iyo qoraal ku soo qoray insha Allah adaad fahansanaan aday la kuuriyay read the comment igu soo qorbinaa kareem. marka subscribe to the podcast or YouTube journalists in English ku baxaya markaas. Okay, tan kale laga rabo waxa use your phone for chatting English language. Your friends and you speak ama chat samaysta conversation between you labadina idin dhaxay conversation labadina dhaxay samaysta then speak English language and each other midna kala kula sheekaysto markaas kula sheekaysto adiga saaxiibka ku sheekaysto luqadda. Okay, and kala waxa marka ask a lot of questions
inaad su'aalo badan isweydiisid. How can I able to say that something or the sentence sideen awood ugu leeyahay inaan luqaan ereyda aan jumladaas kale ku hadlo tusaalahan gurigaan u socdaa kale tiradid how can I say gurigaan aadaa sidaan u dhihi karaa marka ask yourself kadib raadi jumlada waa soo helaysaa markaas kadib maxaad oranaysaa I go to the home gurigaan u socdaa oranaysaa waa heshay markaas jawaabta aad raadinaysaa ask a lot of questions su'aalo badan isweydiin markaad ugu okay number 9 and aydan ka tagay sorry and start with what you are really need start what in that you are interested wax bal wax shayga marka aad xiiseynaysid tusaale waxaad rabtaa inaad passage ama paragraph aad qorto you want to write a paragraph about English language naftaada so and don't be late ha ka daahin don't say yourself I can't able to write this don't say yourself naftaada ku dhig ma qori karo waxaan waa dhibaa ma dhihin qor isku day okay 10 don't give yourself when you are down naftaada yani ha bahdilin hadin waxaan I can do that taas ma qaban karayo mase I can speak English language kuma hadli karayo and yani I do mistakes qaladan sameynaya if I speak English language haddaan ku hadal maaga luqada qalad hadin naftaada waxyaabas naftaada dhin yani English maxaa ku baran kartaa first marka aad tartan English aad barto ama luqad aad barto waxay ahaato you can proc waa inaad jijibishaa marka hore soo jibi luqada isku day wax kasta soo sax iyo qalad isku day inaad sameysid then waxaan kale kugula talinayaa inta aad buugan aan bilaabin inaad soo fahantid la ku reeyahay waxyaabo basic iska oo hadalka caadiga inaad saga darsid hadalka caadiga buugan soo darsid tunta wax badan aad helisid okay yani ka hor dhicin su'aasha kale rabaan kaga waxay tahay what does mega book of modern English grammar can help me muxuu iga caawin karaa buugan horta aniga muxuu iga caawinayaa buugan aan bilaabin muxuu iga caawinayaa wuxuu ka caawinayaa get understand about grammar correctly to speak English language fluently or correctly to put together sentences as correctly inaad jumladihi si sax ah isu gelisid inaad luqadii si sax ah ugu hadashid ayuu ka caawinayaa get understand about grammar correctly okay reading books without being confusing adigoon ku wareerinaa buugta reading books ina buugta akhriso without being confused adigoon ku wareerin markaas because if you don't know English language and this passage or paragraph or newspaper or book written with English language oo luqada ku qoraya adna aad luqada garanaynin you get confused ku dhacana confused okay and browsing websites and newspapers and etc browsing websites inaad daalacato websiteska iyo newspaperska aadee la ku reeyay jaraa'idada inaad akhrisato iyo wixii la mid ah ayaad ka helaysaa buugga markaas because you know grammatically and get fadel ku words erayna waa helaysaa grammatically waa helaysaa markaas okay intan ugu dambeeyda facilitating education and other skills waxbarashadii ku fududeynaya because hadda jaamacadu maxay ku baxayaan English ku baxayaan buugta English ku qorayin fanfarada English ku baxayaan so you have to know English language something about hatta dadna wada aqoon markaas and other skills xirfado kale xirfado kale inaad barataa rabto doonaysa ama wax kale xirfado kale boqorada ku fududeynaya luqadda because it's meant to millions of people speaking English language in the world have million ama kala bar dunida maanta ama inta badan waxay ku hadlayaan luqadda English ku hadlayaan ama wax walba ku qoran yihiin okay okay context marka cashan ku qaado doona buuggan muxuu yahay waxaan qaadanaa chapterkeena koowaad sentences and its structure jumlada iyo qaab dhismeedkeeda chapterkeena koowaad aan ku qaado doonaa bidnal cream jumlada iyo qaab dhismeedkeeda chapterkeena labaad waxaan ku qaado doonaa isla ayadii oo qaybta labaad aan ku qaado doonaa sentences and its structure jumlada iyo qaab dhismeedkeedii iyo sida jumlad how can I make a sentence what is sentence waa maxay jumladii how can I make complete sensible sentences sidaan ku sameyn karaa jumlad dhameystiran macnaheedu dhameystiran these all questions you will get the answers to speak for let's say okay chapter 3 sentences and structure qaybteeda saddexaad aan ku qaado doonaa saddex chapter ayaa looga hadlayaa jumlada iyo wax ay tahay iyo sababaha iyo sida loo dhisi karo binary cream let's say okay and chapter 4 waxaan ku qaado doonaa nouns aan ku qaado doonaa magacyadii magacyadii okay waxaan qaado doonaa chapter 5 waxaan ku qaado doonaa pronouns damaa'irkii ama waxyaalada aan ku qaado doonaa binary cream chapter 6 waxaan ku qaadanaynaa adjectives
sifooyinkii toosho tii aan principal iyo qaanuunadeedii qaabka loo maraa ku qaadano bin kareem chapter 7 articles and the use sida articleska iyo qaabka loo isticmaalayo ku qaadano insha Allah chapter 8 waxaan ku qaadano adverbs falkaabayaashan ku qaadano chapter 9 waxaan ku qaadano preposition and particles and prepositionka ama meelayaha iyo hababka loo isticmaalayo sida uu ula shaqeynayo how the preposition works the words in the sentences with what is necessary sida ula shaqeynayo ereyada ku jira markaas jumlada ku jira sida ula shaqeynayo okay chapter 10 phrases and clauses mushabahaadkan ama jumladahan ee la kuriyo jumlada shabahayaasha aan qaadana bidna kareem and chapter 11 waxaan ku qaadana the conjunction and conjunction connecting the words or the sentences to sentences how I can connect it to words to nouns to pronouns how can I able to do that sideen isugu xiri karaa laba jumladood laba hadii la kuuriyo magac laba shay laba eray aan isugu xiri karaa okay chapter 12 waxaan ku qaadanaynaa verbs oo chapterka ugu weyn ugu ballaaran binal kareem ayaan ku baran doonaa verbs iyo afcaasha ficladan ku baran doonaa chapter 13 waxaan ku baranaynaa infinitive waxyaabihi markaas aan la garanaynin sidii loo markaas loola macaamili lahaa okay waxaan ku baranaynaa de la kuuriyo kan the ground and participle waxaan ku baranaynaa sidii macnaha ay u shaqeey lahaayeen present participle and past participle perfect participle waxa ay shaqeeyaan binaa ku qaadana bidna kareem chapter 16 waxaan ku qaadanaa report speech hadalka sida loo warinayay how can I report a speech of other person correctly falasay ayaan ku qaadanaa chapter 17 passive voice and active voice ayaan ku qaadanaa chapter 18 waxaan ku qaadanaa punctuations iyo max calaamadaha ku qaadanaa ay qaabka u shaqeeyaan chapterka ugu dambeeya 19 waxaan ku qaadan doonaa verbs plus preposition plus adverb idioms iyo waxaan ku qaadanaa binal kareem prepositionka oo lagu daro adverb sidoo kale waxaan ku qaadan doonaa deel ku ran yahay idioms oo ah sarbeebaha iyo sida markaas sarbeebaha markaas aad u soo okay inta ku soo koobay casharkeeni context iyo hordhaca muhiimadu waxa waa deel ku ran yahay inaad si fiican aad u fahantaa deel ku ran yahay talooyinkan si fiican aad qaadato reading every wax kasta inaad ogta aqridid inaad take a note qaatid kadibna aad markaas note-kaas ku qortid erey kasta English aragtid inaad dadka yaqaan luqadda aad la kula sheekaysto luqadda hadday rabto xataa haba qaldanaatee inaad janaladaas deel ku YouTube-ka ama waxyaabo sida BBC oo kale meelahaas oo kale inaad markaas aad samaysatid inaad markaas aad broadcast ama warbaahinadaas aad subscribe saarato sidoo kale use your friend to chatting saaxiibka aad la sheekaysato aad la kuureeyso aad ku sheegto luqadda Ingiriiska been sheeg ma luqadda Carabiga markaan baranaynay waxaan ku baranay ana yar kale saaxiibkay Siciido waxaan ku baranay waxay ahaayeen chatting wada sheekaysan ku baranay anagoo sheekaysi fiican ugu naqal luqadda ayaan kadib naxwaha markaas xoogaa wax ka baranay ask a lot questions su'aalo badan isweydiin naftaada waxaan sidee u dhihi karaa guriga aad sidee u dhihi karaa buugan qaada sidee u dhihi karaa waa chief sidee u dhihi karaa waa soconaa sidee u dhihi karaa how can I say these sentences jumladan sidee u dhihi karaa isweydiin ask yourself okay start with real waxaad markaas u baahan tahay xaqiiqada u baahan tahay markaas baa sidee qortid markaas aad ku reeynaad aad xoog saartid kadib ku dhaqaaqdo naftaada inaad markaas aad daciifin oo aadan adiga markaas aad dismoral iska dhigin naftaada daciifin intaasaan kaga gudbaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad maasantihiin waana idin salaamayaa insha allah casharkan cashar ku xigaya noo balana halkan casharka koowaad aan isku soo gabagabeynaya ibn kareem